waxa uu u sheegay ciyaarihii Soomaaliya inay uga dhamaatay waxa uu u sheegay in lacag damba uu ka helo horyaalka Soomaaliya inay uga dhamaatay waxa uu u sheegay in hamigii rajadii mustaqbalkii iyo waayihii uu ku naaloonayay jeclaana inuu heerkaasi mid ka sareeyay si gaaro ay halka ku xiran yihiin bal adiga saaxiibkana daawanaya ahaw micnay oo micna u sameeyay ereyga ah horseed lagama taga ee waa laga dhintaa si uu jumladaas adiga noogu fasir ciyaaryahanka ayaa horseed ku dhaxdashay ku dhax koray ilaa uu ka dhimanayo ilaahay agtiisa looga balan qaaday inuu halka ku sugnaado kulana wanaagsan saaxiib marba waqtigeena kaalumiyo daqiiqadahan aan ku tira badiyo wax yar ayaan u baahanahay inaan kaga hadlo Nuur Haydaro Nuur Maysi لاعب ay soo bandhigtay kooxda Dekedaha kadibna dib ugu laabtay kooxdiisii hore ee Horseed markii uu heshiis saxiixay hada arimahan waxa kalifay sidii wax u dhaceen tacadiga iyo sidoo kale pressure-ka ciyaaryahankan la saaray inta aanan ku falanqeynin bal adigu marka hore sikimadan yar waxaad ila daawataa kilibkan weelkan shucuurtiisa dareenka wajigiisa iyo sida ay xaaladiisu tahay ana ka cudar daarana wixii shalay dhacay shalay waxaan ahaa wiil cabi maalin maantana waxaan ahay wiil cabi maalin birin waxaan ahaan doonaa wiil cabi maalin wararka la wareejinaya baraha bulshada oo leeyahay waa la handadi cid handada ma jirto shalay jooskii ana ku imaado Horseed maantana waa ku taaganay waxaan rabaa isbedel inaan sameeyo weyn suurtagal weeysi maadaama oo taas ay dhacdeen waxa jeclaystay inaan naadiga ka simid ahaan anigu ma aanan baran cilmi ku saabsan luqadaha jirka saas daraadad kuma dhihi karayo ilaa wiilkan aad ayuu murugaysan yahay laakiin haddii aysan ku hin adigana daawanayo weeyaan saaxiibe cadiifad kale ama indhahaaga iyo maankaagu aysan xirin jecel ama dareen uu ku saabsan kooxda aan ka hadlayo waa dareemi karaysaa xaaladda ciyaaryahankan uu ku sugan yahay marka uu hadlayay inuu ku hadlayo hadal afkiisa midka ka soo baxaya iyo uurku waxa uu kale yahay ay laba kale yihiin farxad la'aanta wajigiisa ka muuqata iyo sida uu dareenkiisu yahayna uu mar walba cabirayo qanacsanaan la'aanta kalibaysa kooxdan haday inuu qandaraas ku saxiixo haba dhacdee sidee wax u dhaceen Nuur Haydaro sanadkiisii ugu dambeeyay 2020 ayuu ku qaadanayay kooxda kubadda cagta ee Horseed Soomaaliya iyo kubadda cagta waxa caan ka ah ciyaaryahanka qandaraaskiisa marka uu dhamaan rabo ciyaaryahanka uu yahay ciyaaryahan iska meel laxaad ah in mararka qaarkood ay isticmaalaan taatiga waa maamulka macallimiinta iyo dadka madaxda ka ah kooxaha in ciyaaryahanka loo aamuso qabana loo galo qorshahan waxa looga gol leeyahay in xidiga marka la arko xirfadiisa rajada uu ka leeyahay kubadda cagta hamiga kooxda inuu sii joogo ee tirada badan ee ku jira in xidigan la sugo inta isaga uu soo gargaraacayo albaabka xafiiska sidaasna marka uu ku soo galo albaabka xafiiska looga saxiixo heshiis uu hadhow ku weyn doono qayb kamid ah mushaarkiisii haddii uu waayo xuquuqdii uu lahaa uusan hadli karin sidoo kalena tacadiye iyo kabadfalla haddii uu la kulmo uu xidigan doodi karin maadaama la leeyahay adiga ayaa shalay xafiiskii mid oo qandaraas hal ii kordhiyay yiri maxaad ku doodaysaa maanta waa dabin iyo shirqol weyn oo ay dhigaan madaxda kooxaha laakiin wiilkan waxaynu dhigi karnaa Allah ayaa ka badbaadiyay markii uu arkay qandaraaskiisa oo dhamaaday kooxda Horseed oo ka cagajiidaysa heshiiskiisa inay kordhiyaan waxa uu heshiis la galay kooxda kubadda cagta ee Dekedaha iyo Nuur Haydaro laba arin waa ay moogayeen ama waa ay salowsiiyeen markii ay soo bandhigistu sameeyeen Dekedaha waxay ku dhiiratay in ciyaaryahankan si degdeg ah ay ula wareegto iyadoo pressure-ka ay kala kulmi doonto Cornel Maxamed oo ah gudoomiyaha kooxda Horseed ayay boosisay qandaraaskii ciyaaryahankan una soo bandhigtay saxaafadda laakiin waxay si ismoogaysiisa maskaxdeeda uga saartay niyadeeda uga baabiisay in hadda ay xiran yihiin albaabadii xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliyeed maalmana ay qaadanayso kooxdan sidii ay uga dhow wareegaleed heshiiska ciyaaryahankan inay xiriirka dhankooda ka soo saxiixdo waxay kaloo ay kooxdan ismoogaysiisay in Cornelka uu yahay ruux ay qaraabo yihiin Cabdiqani Saciid Carab Horseedna ay maalin walba u furan tahay albaabka xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta kiisaskeedii barnaamijyadeedan uusan ahayn kuwa maalin iyo laba maalin ku dhamaada
haddaba sidaa oo ay tahay dekedaha ciyaaryahankan waa ay soo bandhigeen kadib maxaa dhacay Cornel Maxamed gudoomiyaha kooxda Horseed ayuu warkii sidii uu u socday xafiiskiisa ugu galay isagoo aan iswaalin isdhibin waqti badanna aanan luus garaynin waxa uu kaliya wacay ciyaaryahan Nuur Xaydaro waxa uu u sheegay ciyaarihii Soomaaliyiin uga dhamaatay waxa uu u sheegay in lacag danba uu ka helo horyaalka Soomaaliyiin uga dhamaatay waxa uu u sheegay in hamigii rajadii mustaqbalkii iyo waayidii uu ku naaloonayay jeclaana inuu heerkaasi mid ka sareeyo si gaaro ay halka ku xiran yihiin waxa uu u sheegay inuu dhiiqa lugaha la galay isagoo u tilmaamaya in bariiskiisa uu carada ku shubi doono waa haddii ciyaaryahankan uu ku sii dhiirado inuusan horyaalka Soomaaliya u ciyaarin kooxda Horseed waa haddii ciyaaryahankan uu ku dhiirado in kooxda dekedaha sida uu sheegay uu ku biiray uu biiro waa haddii uusan ciyaaryahankan ka noqonin go'aankii ahaa dekedaha ayaa heshiis u saxiixaya waa haddii ciyaaryahankan uusan qandaraaska u kordhin kooxda Horseed Nuur Xaydaro taladii ayaa la wareegtay xaaladii ayaa isku bedeshay wax uusan filayn ayaana markan yimid fikir badan ma loo baahnayn sababtoo ah waqtiga aad ayuu ugu yaraa awood iyo xeeladna waa lagu muquuninayay laacibkan taa waxay kaliftay in go'aan degdeg ah uu qaato ka oo ah inuu maro wada ay hore u mareen ciyaartoy badan oo horyaalka Soomaaliya ciyaara waxa loo soo bandhigay saxaafadda isagoo saxiixay heshiis 2 sano mar kale bal adiga saaxiibkana daawanaya ahaw micnay oo micna u sameeyay ereyga ah Horseed lagama taga ee waa laga dhintaa si uu jumladaas adiga noogu fasir ciyaaryahanka ayaa Horseed ku dhex dhashay ku dhex koray ilaa uu ka dhimanayo Ilaahay agtiisa looga balan qaaday inuu halka ku sugnaado mise awood kale ayaa jirta oo ah ciyaaryahanka in lagu muquuniyo in kooxdan uu joogo inta noloshiisa ka dhiman qanac ama ha qancin farax ama ha farxin ciyaar ama ha dheelin mustaqbalkaaga haddii aad maalin uun ka fikirtid inaad Horseed u ciyaartid iyada ayaad ku dhamaysanaysaa waa halku dhiga Cornel Maxamed oo ah Cornel ciidanka militariga Soomaaliyeed ka tirsan kooxda kubadda cagta ee FC Horseedna gudoomiye u ah ma ku sheegay wax ku saabsan tilaabooyinka iyo Horseed inay qaado hadda loo baahan yahay ama wax loo baahan yahay inuu xiriirka sameeyo ama tilaabo loo baahan yahay ciyaartoyda inay qaadaan maxaa yeelay arrimahan soo gudbintooda waqti badan ayaan ku daalay laakiin adigana daawanaya ayaan maanta u baahanahay in aad bal soo gudbiso maxaa la gudboon xiriirka Soomaaliyeed haddii Horseed xaaladeedu ay maalin walba sidan tahay madaxda kooxaha ciyaartoyda kaleeto iyo sidoo kale dhalinyarada hamiga ciyaaraha Soomaaliya kale waad maasantahay muuqaalkan haddii aad daawatay like share garay commentigana waxay kula tahay noogu soo qor